xafladii dhagax dhiga maanta wadadii xarfo jalam oo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland uu dhagax dhigay wadadaas oo runtii sidii maanta meesha laga sheegay hawl adag ay ka soo maray dowladda Puntland oo madaxweynaha iyo wasiirka qorsheynta iyo wasiirka hawlaha guud aan aad iyo aad runtii ugu mahad celinayo special wasiirka qorsheynta oo runtii wax fara badan ka soo maray maanta ilaahay inoo idmay inaynu dhagax dhigno qaybteedii labaad wadada sida ogtihiin dowladda Puntland waxay ku bixisay si hawshaas u dhamaato lacag milyan iyo 800 oo kun oo ah sameyntii hore iyo wixii hore ay sameeyeen shirkadu markii la helay lacagtan dambe intii hore ay dowladda Puntland bixiso waxay ku bixisay milyan iyo 800 oo kun in wadadan socoto dowladda Puntland ku bixisay waxa kale oo insha Allah hadii rabbi idmo asbuucanba aan ugu talagalay asbuuca wadooyinka in la yiraahdo oo aan hadii ilaahay idmo hadda aan dhagax dhigi doono dhowr wado oo kulligood heshiisyadoodii aan bari saxiixi doono hadii rabbi idmo 6 buundo oo rabaab leh ilaa Garowe ah Falayriyaale ilaa Garowe meesha la yiraahdo mindigar wadadii la oran jiray oo dheerayd hadii abahay qadarayo meesha la yiraahdo waxa la yiraahdaa qayaad same buundadeedii midna aan furayno midna aan dhagax dhigi doono wadada Carmo ilaa iyo Kalabayr oo iyadana hadii rabbi idmo aan heshiiskeeda gali doono dhammaan waxaas heshiisaan galayno oo sidii hore aan u sheegnay lacagta 2 milyan iyo 200 ku baxayso lacagta waxa bixin doona dowladda Puntland macnaheeduna waxa weeye in la helo insha Allah hadii rabbi idmo 8 bilood meelahaas 10 bilood ugu badnaan in wadada Boosaaso Gaalkacyo ay noqoto wado sidii waageedii hore ah loogu talagalay inay noqoto wadadan kale oo ilaa Faleeriyaalana ay noqoto sidii loogu talagalay in laga dhigo waxa soo dhan waa juhdi ay dowladdu gelinayso wax qabadka dalka inta iyadu dalka joogto wax qabadkeeda gelinayso hal kelma raba in raacsado oo ummadda reer Puntland waxay rabtaa wax qabad cidii hore wax soo qabatay waa mahadsan tahay cidii hadda wax qabanaysan waa mahadsan tahay cidii markii hore ay joogtay inaysan wax qaban la ogaa waliba corruption iyo bala gashay haddana aan rajo laga qaban haday timaado inay wax qabato yeysan xagan ama wax ka sheegin cid aysan farteeda gaarin warkaan iska koobaya mar raba inaan aad detail u sii galo laakiin marba imaanaysa hadii rabbi in detail loo galo oo cid aan sheegayo magacyadooda iyo waxay sameeyeen aan meeshan ka sheegno marba imaan doontaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan runtii u mahad celinayaa labada wasiir oo dhinacayga taagan oo ah nimankii hawshan wadadatan markii madaxweynaha laga reebo ka soo galay hawl badan ka soo galay aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan leenahay juhdi badan ka bixiyay waxaan leenahay ummadda reer Puntland insha Allah hadii rabbi idmo 8 bilood 10 bilood ka bacdi waxaan helaynaa wadadii Gaalkacyo Boosaaso oo dhameystiran oo inta badan lacagteeda ay bixisay dowladda Puntland hadda 2 milyan iyo 200 dowladda bixinaysa tan lacagta ku baxaysa waxa ka badan lacagta dowladda Puntland ay bixinayso